الذي حيرته سمرك درسيو فديق دايرو وكاد إن كان قعدي أبالي دوايك القعيل كقعد ذا أركي شجدت الذي حيرته الذي حيرته wiil yaroo indhool ah ayaa wuxuu fadhiyey waddada dhinaceeda kale. Wuxuu haystay calaamad ama sawirad yar oo ay ku qorneen liis caawi, waxaan ahay wiil yaroo danyar ah oo indhool ah. Dadku waa ay ku adkayd inay arkaan sawiradda, isla waxaa ku adkayd inuu helo shilimaad aad u fiican. inkastoo meeshu ahayd meel biisi ah oo dad badan ay marayeen, haddana shilimaadka uu helayaa aad ayay u yaraayeen oo wax badan kuma dhacaynin koofiyadii meesha u taallay ee lacagta loogu riday. maray tahay doorkii nin ayaa soo maray waddada, wuxuuna arkay sawiraddii wiilka meesha u taallay. waa uu istaagay, wuxuuna u tuuray shilimaad yar. wuxuu sameeyey arrin kale oo ah wuxuu beddelay qoraalkii ku qornaa sawiradda. in yar kadib wiilkii wuu yaabay, wuxuuna la yaabay dadkii ugu ridayey koofiyadda lacagta oo sii batay. lacag badan ayaa koofiyaddiisa ku dhacaysay. dad badanna kuwii hore ka duwan iyo sidii horeba waxay arkayeen sawiradda meesha taale iyo wixii ku qornaa, waxayna rabeen inay aad u caawiyaan wiilka. aad ayuu ula yaabay inuu arko waxa dhacaya, wuxuuna rabay inuu ogaado sababta ka dambaysa. maalinkii ku xigtay haddana isla ninkii ayaa soo maray, wuxuuna ag istaagay wiilkii balse uu u fiiriyo xaaladda wiilkii yaraa ee danyarka ahaa inuu isbeddel uu jiro. wiilkii indhoolka ahaa ayaa wuxuu dareemay qaabkii uu u soconayay ninkii, wuxuuna gartay inuu yahay ninkii shalay. wuxuu weydiiyey si xiisale, weliba uu u weydiiyey waxa uu sameeyey shalay. wuxuu ku yidhi, maxaad samaysay shalay? ninkii ayaa ku jawaabay asoo dhoola caddaynaya, waxba ma samaynin, waxaan beddelay oo keliya qoraalkii ku qornaa sawiraddaada. wiilkiyaa wuxuu weydiiyey, oo maxaad ku qortay oo aad ka beddeshay qoraalkii? wuxuu ku yidhi, waxaan ku qoray maanta waa maalin qurux badan, mana awoodo inaan arko. wiilkii ayaa wuxuu yidhi, hee, haddaba waa isku macnee. waa maxay sababta dad badani ay markaas u arkeen sawiradda oo ay lacag badan ugu soo ridayeen? ninkii ayaa yidhi, haa, waad saxan tahay, laakiin qoraalka hore wuxuu ka macno ahaa oo uu sheegayey inaad adigu indhool tahay, halka qoraalka dambe uu ka macno ahaa oo uu sheegayey inay iyagu indhool ahayn oo ay awood u leeyihiin inay wax arkaan. wiilkii ayaa hadda si fiican u fahmay farqiga labada arrin u dhexeeya. ma dareemaysid qiimaha uu wax leeyahay ilaa aad weydo. marka qiimee nimcada ugu yar ee aad haysato ama aad heli karto markaas. intay goorigoor tahay, noolow, jeclow, dhoola caddee, kuna raaxayso wakhti walba oo ka mid ah noloshaada. wakhti walba oo soconaya ama tegaya wuxuu noqon karaa jaanis aad u weyn. sheekadan la wadaag dadka aad jeceshahay oo dhan. janaalkana subscribe saar, like-na ku dhufo, share-na dheh. Thank you so much. كدرسيو فديق دايرو وكاد إن كان قعدي أبالي دوايك القعيل كقعد ذا الذي حيرته سمرك درسيو فديق دايرو وكاد إن كان قعدي